السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلام أصحابتي دقاليga soo dhawaada وفوسي secret recipes channel oo maanta idiin wado pasta alfredo insha Allah xarjeen ka heli doontiin sidee u qurux badan tahay waad arki doontiin insha Allah teamka jecel waxaan rajeynayaa insha Allah markay kor uga jeedaan inay dhihi doonaan alele hada ku tuuraya inta waxaan ku soo shubay saliid waxaan ku soo dubi doonaa digaaga birta kuleel ha ku shubay qeylada ka bixayso arkaysiin si fiican digaaga u soo qaleena xawaajiyeedka ku daraa insha Allah ila arka waxa ku soo dari doonaa hadii Ilaahay insha Allah filfil iyo barbarooniga budada ah waxa kale oo ku soo dari doonaa hadaa jeceshahay basbaas ku darso wixii aad jeceshahay ku darso waxaan ku soo dari doonaa sidoo kale xawaaji xawaajiyada nooca ku yaal isticmaal xawaaji buur xawaaji dhub iyo xawaajiga oo chicken masalaha ah cusbaa ku soo daraya si fiican u soo qaleena insha Allah digaaga gooni u karinaayo waxaan rabaa in wax yar ayada dhacaanka iska soo saarto ku bislaato kadibna aan maaragtay qaleel ay noqoto ayada qaleel ah ka baxsado digaaga maaragtay marka gooni inta u qaleysada waxa ku dhex dirtid ma kala dabcaayo dhanaankiisa iyo marqiisa wixii dhan soo isku haysta hadhowte dhadhanka asaasa u fiican maahano laakiin hadii biyo la dhex dhigo maaragtay asaga dhan wuu furfuranaya si aan naxlahayn ku soo baxa marka saana u soo duba insha Allah asxaabteeda qaaliga hadda ka heshaan waxaan rajeynayaa insha Allah fiidiyoga ina gacanta kor u taagtaan like dhac ka siisaan insha Allah cusubtaan subscribe saar soo dhawo asxaabteeda qaaliga marka waa u jeedin digaaga saana u soo dubaya hadii Ilaahay insha Allah dubo ma dhaha masqaleys waxa ratid ka dhigo saana noogu diyaartaa weel ku sii shubo doona insha Allah inta waxaan ku soo karinayaa baasada tana ani jecelaha karsanaya mid jeceshaha guriga ku taala karsan kartaa hadii Ilaahay ilma laakiin waxa ku fiican pasta alfredo pasta saas u waaweyn ayaa fiican hadii makarooni xataa haysid makarooni ayaad ka dhigan kartaa wixii aad jeceshahay insha Allah sidoo kale ma kana digaagi weelka aan ku dubanay ayaa waxaan ku soo shubayaa subag bata ani baastada isticmaalayo waa 1 kilo waa 1 kg oo baasta ah waaye marka hada baasta badan isticmaaladiis dufan fiican u baahan tahay basashan ku soo shubaya hadii subaga aad haysanin saliida haysta isticmaal laakiin subaga hadhowto odeega caraf oo ku siina insha Allah subaga marka midka isticmaalayo waxa waaye caana yar u leeyahay qaboo yahay asaga subaga kaligiisa ha isku soo haray waa u jeedin hada basashan ku soo shubay awalna toona ku soo shubay si fiican isugu qaleena marka ilaa basasha xoogaa yar ay naga yar karto indhihiina idin macalin asxaabteeda qaaliga insha Allah waxaan ku soo shubatoon kadibna waxaan ku soo daray basasha si fiican u soo qaleena fiidiyoga soo jaramaahano waxaan ku soo darayaa mushroomka kadibna mushroomka wax yar ayaan basasha asagana ku soo hoorinaya insha Allah si fiican baasada kuugu carfinaya dhadhan dhacaankiisana wuxuu ku siinaa udeeg iyo macaan ayuu ku siinaya hadii aadan haysanin ama aadan jeclayn digaaga kaligiisa uu kugu filan yahay insha Allah hadii haystina isticmaal oo tijaabi insha Allah aad arki doontid waan ka heli doontaa si fiican marka cabaaraan u soo biyo dhalaamahan wada walaaqa ka dhaafto dabha oo saaid u sareeyaan ku karinaya walaaqana ku wadaas biyo badan u dhalinin kadib waxaan isticmaalayaa kareemka caadiga ah oo loogu talagalay in lagu sameysto waxyaabaha maarta suugooyinka adarto inuu ku cuslaadaan waxyaabahaas dhan lagu daraa marka waxaan ku soo darayaa cooking cream adi waxa maaragtay nooca wadanka joogta ama meesha joogtid laga hela isticmaali kartaa midka isticmaalay wuu adag yahay marka qaar waxa jira mid bibiyo amal ah oo fresh ah hadaa kas bibiyaha haysatid waa isticmaali kartaa hadaa kan adag haysatid waa isticmaali kartaa adii doo qaado waaye waxaan ku soo darayaa filfil bahalkii basbaas gaduud ku soo darayaa kadibna wixii kale ku daraa waa ila arki doontiin insha Allah ani maadaama baasada isticmaala baasta tiro badan ay tahay 1 kiilo biyihi baasada waxaan ka soo qaaday 1 bakeeri kadibna waxaan ku soo daray 1 xabo maraq digaag waa ku badinaa biyaha baasada calshan way yar adag yihiin biyaha caadiga ayaga ka fiican marka biyaha caadiga ayaga iga fiican maraq digaagan dhanaan fiican noo siinaa marka koob biyahi baasada ah ayaan ku soo daray maraq digaag kadib adig kareemka iyo mushroomka iyo maaragtay basasheeni afaareen in si fiican soo karaan rabaa jiisa ku soo daray jiiska adin nooca rabta isticmaal nooca ka hesho isticmaal oo adi maaragtay caraftiisa dhadhankiisa ay familigaada jecel yihiin kadib waxaan sameeynaa jiiska waxaan rabaa inuu kareemka wax yar ii sii adkeeyo hadaa jecleen waa ka maarantaa jiiska jiis la'aan sameysan kartaa digaaga ku soo daraya inta
waxaa samayn kartaa haddii maaragtay aadan jeclayn jiiska inaad ku daratid kareemka nooca adeega ah isticmaal. marka weelka ku karinayo wuu yaryahay waa ka gedinayaa baastada maadaama ay 1 kiilo tahay. si fiicana kareemkii iyo afaari isku dhex galeen baastadii aan kusoo shubaa waa isku walaaqa 10 daqiiqo ayaan dabka u gaabinayaa si fiican jiiska iyo kareemka baastada dhexda uga galo isku huuraan ayaa loo baahan yahay maahan asxaabtayda qaaliga ah. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad kusoo tuurtiin waa ka heli doontiin ilmihiina familigeena waa jeclaa doonaan odeegeedii carafteeda baxaysa maalin kasta baasto suuga lama soo hortaagnaan karo. waa kana markaa jeceshaa ku tuuro way macaan tahay way caraf badan tahay way odeeg badan tahay dhadhankeeda waa laga hubaa aragtideedana adinka waa iga heesan saa u jeediin ayad dhan isku dhiidhiin waayaan ku dhahay markaa saxan kusoo gura hadda waan daboolaya 10 daqiiqo kadib anoo saxan kusoo gura ila arki doontiin. asxaabtayda waa kana markaa saxan kusoo riday waa isku soo dhiintay waxaa ku dhahay kareemka dhexdu ka gala baastada idey maahan ma idey iyo mukudeynayo waa ma fahantay. midda kale waxay ku fiican tahay alfredo ayadoo dadka cuni lahay u fadhiyaan in loo sameeyo haddii kale jiiska ka dhaaf haddii kale jiis ku dareysid ayadoo la fadhiyo kasoo tuur. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.